السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما صاحبة الصوماليات ملكستو الجوبتان يسكرتو أدنان داوليسان حلو ونكسن موضوع اللي حكو سابسين هاي حقيبي كلامريان لفوين تيها تأبقال إيو حسن محمود على السوق فاهن أيان ذكر هينا أذكر واحد قال السلام عليكم الله يكسرتان لنا وداكتان صاحبتي وهي هاي لغا وكورا كصوب بالله بيورتو أدواء يوسف راقي حاشق محمود أيا ويري وحوري قال كيقو مدحتوين هايقو يمادو ودوا waa shakiyay wuxuu soo kaxaysto taliyaha ciidanka xoogga dalka oo isaguna nin waxbuulan abgaala ah iyo shuute oo abgaala saddexdooda u yimid xasan wuxuu u gar dhigtay ninka la yiraahdo wadawaa wuxuu wataan ku dalacsiyay wataan ciidanka ku magacaabay arixaad iyo soo horjeesatay iyaarkiiga wadawaa wuxuu rikaaba soo horjeesanay adiga mooda anigu guriga aan deganaa ee degmada Cabdulcasiis aan ku sugnaa dagaalka hadda maxamed Shariif Allah gashan qayb kama ahay dhowr askari oo odagaas maxamed Shariif adeerkood yahay oo xoogaa qiirooday dagaalka waa ku biiray laakiin anigu shaqo kuma lahayn wuxuu yiri waxaan rabaa inaad shir jaleed qabato cadayso inaad banaanka ka taagan tahay berina ka tahay Shariif Sheekh Axmed waxa weeye si aan ku aamino odawa wuxuu yiri wax qasbay ma jiraan haddan ba adiga ku sheego haya adeeru balofis haddan ba ku sheego inaan shaqo ku lahayn سواء شرجة القبتنا باشا مطار على كل حال وحيو كربي سواء كهري والوايه اسكب حويري وعي سوق برجل الجوجي مركو يريد كبحي أدواء إنه حسن فروري قنينة أي لا الله كلام توصل وتوي الحري الهاي وحوكع الشهداء كان تريح عيدا كحيوك الضلك يشوته أو وحول سيري أما يكون لقاري كنا المدح ولا دوجها نقفيق ما نيك تريح عيدا كحيوك الضلك أنا أقول إن حكومة شلي أياد ما أنت نقول جيريسة مركا حوكع وكجبن جابسدي من حرين halkaas isagay odawaaya kala jooga dhanka kale ciidamadii Cabdullaahi Maxamed Nuur ee la baacsanayay waxay gaareen iyagoo tiknikadooda wato wixii laga sii dilay wixii laga dhaawacay marka laga reebo deegaanka Caduul halkaas ayaa habeen hore ka shacaynka uga siiday sidoo kale xalay waxa ka daba guuray Sani Cabdulle oo isagana bariyahan indhaha faraha la gelilay Sani waxay yiraahdeen dadka yaqaan waa dhalan madow oo waxa ku dhex jira dhalamadu lama yaqaano marka maxasar oo la jira ma ka soo horjeeda way shakisanaayeen xoogaa ciidamada hareeraha laga dhigay aduguna ma aragtay waa ku kumanti gareeyna camal difaacu iska galay waxa waaye iyagoo marka ku wareersan ciidan aad u xoog badan la maadaama uu haysto ay ku dhici waayeen shab lahaan isagaaba guuray oo wuxuu hadana degay Caduul wuxuu ka daba tagay ciidankii Cabdullaahi Maxamed Nuur halkaas waxa la yiri ku dhawaad 100 tiknika ah iyo waxa weeye ciidankooda ayaa ku sugan oo hartaab gaal ah maxaa socda hadda marka hartaab gaal kulamo waaweyn oo socda ciidamadoodii geesay ula baxeen waxayna hadda doonayaan inay pressure saaraan ninka leeyahay Ali Guudlaawe oo leeyahay Aliyow adigu ma hartaab gaal ha tahay horta masajin haan ka furay aan la aqoon oo Xasan Maxamed Cali soo u shaqeeyay haduu yiraahdo hartaab gaal halaha hartaab gaal wuxuu qabaana qabaa waxay dhig rabaan annaga lagu soo bir ciidamada aynu haysanana daraawiishta Hirshabeelle noogu dar taas haduu yeelo oo isaguna waxa laale wuxuu haayo kuwaas ku daro hartaab gaal waxa u qorsheysan inay inta soo guuraan marka dermoolay soo degaan Xasanow hadda ba iyagu mid noo bilow haddii Ali Guudlaawe diido oo uu yiraahdo hay soo gelina anu warkiina ma rabo waa haddii ku xasanaysanahay JSB baan ahana waxay taagiin hartaab gaal hadda Hirshabeelle laftirkeeda ba xoray naga rabta halkaas waxa maraya maxawaatay hawsha hartaab gaal dhanka kale ninka la yiraahdo Cabdullaahi Maxamed Nuur hotelkiisi waa kan xilay waa la bilaqaystay hub muxuu ahaaytay meel kale laga keenayna meeshu waa lagu soo bandhigay waxa la yiraahdo halkan alaabtan ku hayay maxawaatay wuxuu leeyahay fadhu ah Shariif eeda badan baa la huuyay laakiin ninka odaga ah wuxuu sheegay hotelkiisu waa hotel ganacsi la qabsaday koox jabhadu haysato warqad uu soo saarana wuxuu ku sheegay in ilaa dalka isbedel ka dhaco hotelkiisu uu xiraan doono oo dibdaba uu soo furi doonin wuxuu yiri waan jeclaa inuu shaqeeyo laakiin waa la igu khasbay waayahay hartaab gaal marka iyo Xasan Maxamed Cali Sow aynu eegno iyo abgaal lixdiisa horta abgaal Ismaan cidda ugu maxuu ahaaytay adag oo awoodda abgaal ah hartaab gaal waa laga leeyahay wax buudanka
waxaa ku jira niman la yidhaha daa'uud inta kale waa iska xaabo wacaysle leesmaba weydiiye isaga cudud iyo militari ciidan iyo dagaal iyo marka la yidhaahdo abgaa dhexdiisa xisaab laguma dare waxaa loo dili jiray saadka waxaa la jira badarka iyo biyaha iyo caanaha iyo dalka laga daba keena saasay ahaayeen waxaad xusuusataan berigii maxamedow soo bax muuse suudi inay baabuurkan dameer habar gidir miyaa la yidhaha maaqa baabuur yaroo odagu xoogaa wax fiican qaada ayay raashin ku qaadeen xoogaa geeloo yoobaxyaana way geeyeen marka muuse markuu ka guddoomayo wacayslaha yacni miranaayigii ayuu wuxuu yidhi wacayslo waa aadaad u mahadsantihiin deeqdaad keenteenna waa ku mahadsantihiin laakiin deeqda igaarta cuni lahayd ku soo darow wuxuu la jeedaa waxaa weeye da cudud ciidan wacayslow ma haysiin waaye waxaa weeye marka hadda bahashu waa adduunyo caloosha laga raray geel caloosha laga raray meeshii laga oran jiray weeyaanoo wacayslihii baa wax xiryanaya hartaabgaal xaalkiisu halkaasuu marayaa xasan sheekh maxamuudna waxaa weeye dhiiqadii adduunka ayaa lugaha loo geliyey wararka qaarna waxay sheegayaan riwaayadda xasan sheekh maxamuud naftirkiisa inuusan atoora ka ahayn isagu uu ismoodo inuu atooro yahay laakiin waxaa weeye rag kale ay atoorayaal ka yihiin oo si dadban xasan laftirkiisa dhiiqo lugaha loogu gelinayo mowduuc gaaraan ka samayn doonaa waa kuwama nimanka gacanta xasan sheekh maxamuud baasada ku dariiqohay waa noo barnaamij kale hase yeeshee xasan sheekh tallaabooyinkii uu qaaday ma mahadin foolxumo iyo fadeexad iyo kala qoqob iyo bulshadii inay kala yaacdo unbuu ka faa'iiday caqli hadduu leeyahana weli ceebaa jirta maalinta hadduu inta shir jaraa'id qabto xasan sheekh maxamuud ilaah waxaa weeye waxaan gaar wataa huma jiraan doorasho ummadaan ula simanahay siyaasiyiintu ay isu yimaadeen ha la wada hadlo dalkan intaan soo xukumi karin waa soo xukumaye waxaa weeye ilma adeerayaal aynu ka heshiino meeshii uu u dhaqaaqi lahaa dhibka oo dhan wuu damaya laakiin weli waxaad moodaa xasan oo go-aanka lala leeyahay in uu derbiga madaxa ku maqiiqayo laakiin meeshuu ku dhammeeyo ayaa arki doona waana halkii abgaalku ka dhihi jireen niman socdaa lahaa sidee salka meehay dhigtaan suuga insha allahu tacaala salka meeshay dhigtaan sugaynaa barnaamijkayga intaasaan kusoo gabagabeynayaa hada wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu